اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. maanta halkan waxaan isugu nimid ugu soo banaanbaxnay inaanu dareenkeena ku cabiro niman ardaya oo ku xirxiran magaala madaxda Garowe ee Puntland. nimankaas 2013 bishii sagaalaad baa la qabtay nimankaas. nin waxaa laga qabtay dugsiga Umar Samatar isagoo dugsi sare ku jira oo halkaas dhiganaya oo qalin haysta baa halka laga qabtay. ninna waxaa laga qabtay magaalada Xarfo qalin buu watay jaamacada qalin jaamacadeeda uu ka soo qalin jabiyay oo halkaas ayuu wuxuu ka ahaa bare shaqo joogay qalinkaas watay. labada nin oo halkaas xilliga la qabtay ilaa iyo xilligaasna meesha ku xiraa bacdi maxkamadda loo furay 2015 bishii koowaad taasoo xeeraryaha qaranka Puntland uu ku dhawaaqay nimankaas markii wax dambiye loo waayay in 2 sano oo dhaqan celin loo sameeyo. markii labaad oo lagu soo cishay 2015 bishii labaad 18 bishii labaad lagu soo celiyay waxa lagu dhawaaqay oo xeeraryahu ku dhawaaqay in la daldalo nimankaas iyagoo bilaa dambiye. waxaanu maanta ka soo baxnay shuxuurteena ku muujinaynaa inaysan arintaasi ahayn arin shariicada islaamka midda binaalaha midna inaysan meel ka qusayn aysan haysan wax sharci ah nimankaas inaan lagu xukumin oo maxkamadaas yaani maxkamadda darajada koowaad ee Puntland ee gobolka magaala madaxda Puntland ee Nugaal ka dhacday inaysan ahayn maxkamad cadaalad ah maxkamad shariicada islaamka iyo midda binaalaha midna aysan meel ka waafaqsanayn. taasaanu shuxuurteena iyo dareenkeena ku muujinaynaa taasoo aanu aragnay inay tahay wax yaani ma taqaanaa ujeeddo gaar ah inay tahay aanu aragnay dad dana gaar ah nimankaas kalihina ay dabada ka riixayaan. waxaanu ogsoonahay in la soo hadleen 2015 bishii koowaad markii xukunkaasi dhacayay oo uu yiri xeeraryaha darajada koowaad uu yiri nimankan 2 sano oo dhaqan celin ha loo celiyo. in niman saraakiil ah ee gobolka bari jooga inay la soo hadleen. waxaan ogsoonahay dad shacab ah ee aan hadda anagu tilmaamayn ee Puntland kamid ah beelaha Puntland kamid ah inay la soo hadleen. dabadeedna markii maxkamaddii labaad la furay ay xukun daldalaada uu xukumay xeeraryahu taasaanu ka soo banaanbaxnay taasaanu ka cawdaynaa. waxaanu arintaas macnaha maanta aanu dareenkeeda ka muujinaynaa oo aanu ka hadlaynaa arintaas ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaanu aragnaa arintaas inay tahay xaq. waxaanu aragnaa inay tahay haddii alla kuna midaan shariicada islaamka waafaqsanayn. waxaanu ogeysiinaynaa meel kasta ummadda Soomaaliyeed joogto dawladda dhexe ee Soomaaliya maamulada meel kasta haddii alla kuna Soomaaliya ka dhisan maamulka Puntland ee Cabdiwali Cali Gaas uu madaxweynaha ka yahay golaha baarlamaanka golaha dhaqanka waxaanu ogeysiinaynaa oo arintaa u sheegaynaa arintaas inaysan ahayn arin cadaalad ah si cadaaladana aysan u dhicin ee ay tahay arin dulmi ah oo dadana gaar ah wata oo hulaaban ay macnaha waxa weeye nimankaas amarka ku fuliyeen. waxa lagu eedeeyay nimanka al-shabaab lagu eedeeyay ma ahan nimanka guryahoodii bay joogeen halkaas ay wax ku barteen gobolka Mudug bay wax ku barteen ku dhasheen dugsi sare iyo dugsi hoose labadaba ay kaga baxeen. ninka dugsiga sare ka baxay jaamacadda iyadu ku qaatay dugsiga sarena iyadu ku qaatay kan hadda dugsiga sare ku jiray Umar Samatar buu dhiganahay qalinka isagoo haysto arday dhex fadhiya laga shaqaad. sidaa darteed waxaanu halka ka muujinaynaa oo maanta ka soo banaanbaxnay oo arinta shuxuurtayada aanu rabnaa inaan ku muujino arintaas inaysan ahayn arin cadaalad ah arrin shariicada islaamka waafaqsan
أرين مدة بنالها وافقسن من أين يصنعين حير إلاليونا وهدي على كورون جاي وحدقلب كسبي حدقلب إنه معمول كانوا كسبي أنا كانوا كسبي أنت أصلا مبتشرين والسلام عليكم رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد وعوي أنا ومشان ما أنت اسمه برنامج بحني وحنا نصو برنامج بحني إلى شهور طيبة موجنو عدينا وحنا كسو برنامج بحني وعيكو حسن تاي عدالة درة سنة مع كمالها بطلان قبل كمدو عدالة درة تكون رسمين ده تندعي ومن وارن دلي من هايات وشقيني أصدق الله قبضي شريعة الإسلام كأنو بندقني حبس جيمان جيني دولة دين سلم مسق ماسق لسقق سميري ولا ديبي وأنا لقاه الله الشريعة وافقنا اللي بدي حسبنا إنه على بعض لوجا متى كله متى لبضع عننا وحرن إلهي إنسان كسوه أمر يا عدالة إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأتي ذو القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر أنه عدالة بان إلهي مدي سوى أمري بان كسرنا وعنو أيضاً مع كمدة مقال مدح بطلان درجة كوبات وحكمتي ويلاشا نكاي غوريو وتاريخه كسو ورمي ومركي قدام بيسي هذا حلي كان دلك توشا روح حكومي تيكو الرئيس اللي هو عي واللي يلي لبسنا ودخل علينا بيدبوا سحرنا يا وعينا مريان لبسنا يو أو بلاد من بين مريان وعوي وعنو شيء إن مدحوينا بطلان قلها برلمانك قلها وسيرده إن لبدا وين Soomaaliya iyo caalamka in loo bandhigo nabadda ummaddu inay ku jirto cadaaladana miiska la soo saaro cadaalad baan u bugnaa cadaalad baan ka hadlaynaa waa in cadaaladii nala mariyaa hadii ay cadaalad dhicin hadda dadka Soomaaliya waxa cadaalad darra awl isku baabiisay haddana cadaalad darradii shalay isku baabiisay baa laga qoolayaa ummadaas waa ka kacday cadaalad darradaas aan ka soo horjeednaa waxaan codsanaynaa dawladda dhexe inay soo farageliso waxaan codsanaynaa jaariyaha barnaanka oo dibadda jira oo dadkaas ka dhasheen inay sidoo kale ay ugu soo hawlgalaan indhaha caalamka oo dhan labada wiil baa nabadda ummadda ku xiranta nabadda ummadda annagaana hogaaminayna annagaana qabna nabadda iyaduna waxay ku xirantaa labada wiil haddii cadaalad la soo taago oo cadaalad dambi ay ku yeeshaana waa qaadanaynaa annagaana sayaacayna in la toogto iyadoo cadaalad darra shalayna waa ka dhimanaynay maantana waa ku dhimanaynaa ومدنا وكل تجلس وعدينا وعدالة الراعي ولا كأنه